agaasimaha martida loo yahay galgalbinayo furitaanka xafladiisa iyo saaxiibada kale ka soo qayb galay kulligiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waan aad baan uga mahad celinaynaa shaqada immigrationku guud ahaan oo dalka Soomaaliya ka hayo gaar ahaan deegaankan aan joogno iyo sida uu garanayaan ahmiyadda laantan socdaalku ay leedahay marka wadanka dib aad u fiiriso sababtoo waa matalaada jinsiga Soomaaliga meesha laga qaato qofku inuu Soomaali yahay iyo inuu aan ahayn meesha asalka oo halkan waa meesha fudaydinaysa kuwa ajnabiga ah xataa kuwa imanaya iyo waxa la qabanaya sida loo sameeyo haddii markaa aan la helin facility ama goobtii shaqada wax lagu qaban lahaa waxaa adkaanaysa shaqadu inay qabato waxaa tusaale kugu filan haddii qolla meeshan aad ku leedahay qolla meel kale oo processku uu noqdo wareeg dheer oo meelo kala duwan oo badan aad soo marayso way kugu adkaanaysaa marka agaasi waxaan idinka mahad celinaynaa weliba priority-ga aad siiseen inaad degmada iyo staydyada xarumahooda ka dhistaan xarumaha immigration oo ayna jiraynin baahi in muqdisho loo doonto baasaboorka waan idinka mahad celinaynaa dhismahan iyo dhismaha ciddii dhistay iyo saad u fuliseen iyo naqshadiisa iyo dabkiisa saad u kontarosheen iyo solarkaad saarteen iyo shaqadu say ku soconaysa intaba aad baan idinka mahad celinaynaa maalintii warisay shaqada la bilaabayay halkaan aan ka siinay laba qolon ku dhigay immigration lagama maarmayo hala siiyo process dheer ba hadda soo martay laakiin maanta waxaad leedihiin xafiisyo aan ilaahay ugu shukriyayna inaad maanta dhisma aad leedihiinna la furay xafiisyo ay hay-addu leedahayna maanta ay shaqaynayaan intaa haddaan kaga gudbo furitaanka cabdullah dhalinyaro aad tahay waxaan u malaynayaa dee legasiga aad ka tegaysay qayb ka noqonaysaa inaad hadda xuduudkana waa la furayaa xuduudka dheer oo intaasoo kilomitr 800 iyo abaf kilomitr oo Kenya aan la leenahay waa meelo kulli u baahan in dadku agsar sababtoo marka xuduudkaagu furan yahay immigration markuu shaqaynayo xataa waxaa fududaanaysa isu gudbitaanka dadka iyo shaqada iyo ganacsiga waxaan rabnaa bal inaad indho gaara xuduudka keliya uguna degan aamino uu ka jiro ganacsina uu Soomaalidii dhinac labada dhinacba iyada degan oo kala mari kara inaad taas culays badan saartaan oo dadkana lagu wacyigeliyo marka meelaha xuduudaha iyo interpointyada in qof waliba uu maro oo shaqadaas aan isleeyahay inaad sii ladan laabtaan aad baan u mahadsantihiin waa inoo furayaa dhismo waan idinka mahad celinaynaa wabillahi tawfiiq